وعنا ونكسن داود يا لذين هنتينا مال والبعض كنا شيء وحنا لنا هاي سحبت هذا قيمة هي قاية نجم مدن كسر دوادة برامج كنا فاقدات عيارة بدل برامج كنا فاقدات عيارة أمانته وحنقول بالله بدونا عياريان كفيكتور يوكريس أو مركزي هشيز كأرسنال لك لي يولي باللبض كوحدة سبورت ليسبوني كواحدة أرسنال أي وقرك أسرين هاي إنه بربرو haddaba kooxda Sport Lisbon ayaa waxay markaasi ka dhigtay xujo aad u adag in ciyaaryahankan ay fasaxdo maadaama uu diiday ciyaaryahanka inuu asigaba ka soo qayb galo tababarka ciyaaryahanka ayaa iminka waxa uu muuqdaa mid raba kooxda Arsenal laakiin kooxda Sport Lisbon ee dalkaasi Portuguese ayaa iyaduna markaasi xujo adag kaga dhigtay in ciyaaryahanka markaasi uuna markaasi laga gadin ama uusan aadin kooxda Arsenal haddaba wadahadalkan oo markaasi ay dib ugu soo laabteen wakiiladii wadahadalka u qaabilsanaa ee joogay dalkaasi Portuguese magaalada Lisbon ayaa waxay markaasi dib ugu soo laabteen sida la wariyay dalkaasi Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ay ka dhisan tahay kooxda Arsenal haddaba wakiiladaas oo dib ugu soo laabtay waxa laga yaabaa in waqti dambe ama kooxda Sport Lisbon ay wax isku afkartaan laakiin wadaxaajoodka ay Arsenal ay rabto ayaa waxa ay ahayd 60 milyan oo kaasha inay dhiibto 15 milyan oo kalena inay gadaal ka dhiibto laakiin ayaguna waxay yiraahdeen Sport Lisbon 70 milyan ayaa dhiibaysan wixii kalena gadaal ayaa ka dhiibi doontaan marka waxyaabaha la isku fahmi waayay ayaa intaas marka kooxduna waxay marka imanka tahay ciyaaryahan aan markaasi gool dhaliye haysanin oo ciyaaryahan gool dhaliye ah ama no 9 aysan imanka wali haysanin ayna ku guuleysan ولو سيسكو لو سو ديداي او RB Leipzig ay xoogga iyadana sidoo kale xaajoodkooda ay ku fashilmay madaxda labada kooxood kala haysta ama especially kooxda kooxda RB Leipzig ee ka dhisan dalkaasi Germany oo iyaduna sidoo kale diiday ama ku adkaysay inay fasaxdo ciyaaryahanka Benjamin Sesko sidoo kale haddana waxa la leeyahay waxa asna fashil ku soo dhamaaday ama qarka u saaran inuu heshiiskaasi burburo ciyaaryahan Victor Gyökeres oo asna kooxda Sport Lisbon ay markaas aad ugu adag tahay in Arsenal ay ka soo qaado haddaba Arsenal maxay tahay in karta ka haysato ciyaaryahanka non 9ka ee sanadkan markaas ay ku ay doonato ay aad ugu adag tahay hadda ma laga yaabaa meel kale inay ka hesho ciyaaryahan oo non 9 ah oo aan markaasi labadaas midkood aanan ahayn oo ay ku meel gaari karto sanadkan 2025 ee la gaarayo ciyaaryahanka furmay saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay oo aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka fadlan nala saaxiib oo markaasi follow garay page-ka YouTube-kana sidoo kale subscribe inoo saar sina share garay oo markaasi noqo mid markaasi ka qayb qaata sidoo markaa page-keena oo sare ugu kici lahaa ama YouTube-ka aad baad maasan tahay saaxiib waa saaxiibkiin baariyoodin leh anta dib ugu kulmi doono barnaamijkeena kaleento waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh